ururka qurxinta guryaha iyo xafiisyada Tawakkal ee gobolka Togdheer ayaa si weyn uga qayb qaatay ololaha nadaafadda magaalada Burco maanta si wada jir ah looga fuliyay taas oo ku timi baaqi golaha deegaanka degmada Burco. ururkan Tawakkal ayaa goobo kala duwan ka fuliyay ololaha kuwaas oo wata gaadiid iyo dadba waxaana horkacayay gudoomiyaha ururka Salebaan Maxamed Cabdi iyo shaqaalaha ku shaqeeya xirfadda farshaxanka guryaha iyo xafiisyada. Salebaan Maxamed Cabdi gudoomiyaha ururka Tawakkal iyo xubno kamida ururka ayaa sheegay inay ka soo jawaabeen baaqi golaha deegaanka degmada Burco markastana ay diyaar u yihiin horumarka Burco. anagoo ah iskaashatada Tawakkal baaqi uu diray maayirka gobolku si wanaagsan baan uga soo jawaabnay waana shaqeynaa waana wax kasta oo maanta loo baahan yahay ama qashan noqoto wax kasta oo dawladda hoose oo muruqiya maal baan la garab taaganahay sida awgeed kale iskaashatadeedina haddaan iskaashatada qurxinta qalabka guryaha nahay si wanaagsan baan uga qayb qaadanay insha Allah wixii dambana waa ka qayb qaadanaynaa. waa mid qaaliya waana mid muhiima meesha taala hadday tahay iskaashatada Tawakkal aad iyo aad bay ugu mahadsantahay waana ka qayb gashay waana wixii allaali wixii qayb ay qaadato waa laga qayb gelaya. haddaan nahay iskaashatada Tawakkal waxaanu ka soo jawaabnay baaqi uu diray maayirka magaalada gobolka Togdheer waxaanu dawladda hoose ee gobolka Togdheer aanu garab taaganahay wax kasto ay dawladda hoose looga baahato anagu reer Burco gobolka Togdheer waxaan leeyahay nadaafadu min al-iimaan nadaafadu waa qayb kamid ah iimaanka haddayna qashiga iska gurin oo aynaan iska hagaajin oo aynaan shakhsi iyo group iyo gobol ba aynaan u shaqeyn nadaafadu magaalada ma yeelanayso biricna yeelan mayso marka anagu haddaan nahay iskaashatada Tawakkal waajibaadkiina lagu lahaa ee wadanku nagu lahaa ee gobolku nagu lahaa ee maayirku uu ka dhawaajiyay anagu waanu gudanay. Cabsa Farax Cabdilaahi iyo Cabdiwasac Maxamed Jaamac TV-ga qaranka Burco.